dugsiyada nuuraddiin schools السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaynu ku inoo socdo bartamaha inaga go'ay casharkii hore casharkeeni radio receiverka wuxuu ka koobnaabanayay maxay transmitter ahana receiver aerial key tuning circuit key demodulator key iyo amplifier key loud speaker key marka aerial ku wuxuu detect gareynayaa banadii boqolaal signal buu helayaa ama boqolaal station boqolaal signal oo ka yimid different stations buu helayaa station kala duwan signalska faraha badan markuu detect gareeyo tuning circuit ka ayaa kala xulanaysa waxay tuning circuit ku ay ka dooranaysaa signalka frequency-giisu la eegahay natural frequency-geeda signalka frequency-giisu la eegahay natural frequency-geeda ayay ka dooranaysaa frequency-ga ay isku la ekaanayaan waxa loo yaqaanaa resonant frequency waa frequency isku la ekaanayaan natural frequency-ga tuning circuit iyo frequency-ga signalka la salad gareeyay so that the tuning circuit selects only one signal whose its frequency equals the natural frequency of the tuning circuit signalkii markay doorato signalkii waxa loo dirayaa demodulator-ku muxuu ka samaysan yahay meesha taadaba demodulator-kan wuxuu ka kooban yahay ama demodulator-ku uu inooga sameysay marka demodulator aan ka hadlayno waa demodulator-kani wuxuu noqonayaa it consists of demodulator-ku wuxuu ka samaysan yahay waa diode waa kan circuit-kiisu waa diode buu ka samaysan yahay diode demodulator-ku wuxuu ka samaysan yahay diode buu ka samaysan yahay marka signalkii sidan ahaa signalkeenii shape-ka ahaa markuu demodulator-ka soo galo wuxuu tahay signalkaasi qaybta forward part-ga ah unbuu sii deynaya diode-ku wuxuu sii deynaya qaybtii ahayd forward part-ga oo quduu sii deynaya qaybta backward part-ga wuu block gareynayaa si aynu hadhow sawirka ku arki doono marka wuxuu tahay demodulator markaynu ka hadlayno demodulator-ku waxa uu sameynayaa uu kala reebayaa AFT buu RF-ta ka jarayaa marka signalkeenii soo galay shape-kan lahaa ee ka yimid tuning circuit-ka ka yimid ee AM tahay saas markuu helo wuu kala qaybinayaaba kala badh inta sare oo kaliya sii deynaya inta hoosena uu jaray oo block gareynaya waayo sida form 3 ku qaateen demodulator-ku inta badan diode-ku dhinacun bay ku dhaafaan labada dhinacba waxuma dhaafaan marka inta sare uu sii deynaya qura inta hoose uu block gareynaya airtin buu ku sameynayaa intaas sare waxa markiiba uu marayaa capacitor-kii dabeetana waxa samaysaa smoothing way simaysaa marka ay sinto kaasi waa signalkii la siday way simaysaa waxayna sameynaysaa airtin bay sameynaysaa dhulka la gelinayaa RF-ta wixii hadhay dabeetana AFT soo hadhay baa loo dirayaa amplifier AFT amplifier-ka xoojinaya loud speaker-ka loo dirayaa loud speaker-kana wuxuu bedelayaa markaa maxay sound buu bedelaa saasaa codkii lagu dhageysanaya marka haddaynu ku yaro noqono halka casharkiina soo ahaan oo kale casharkii haddaynu dib ugu yaro noqono waxaad ogaataa waa tan circuit-kii ahayd receiver-kii waa kan amplitude modulation tuning circuit-kii waa tan marka tuning circuit-kii demodulator-kii baa ku xiga amplifier-kii baa inoogu xiga AF amplifier-kii iyo loud speaker-kii baa inoogu xiga marka sidee bay u shaqeynayaan tuning circuit-ku halkan waxaa kugu taalo oscillator-kii aan xiisadii hore sharaxay casharkeennii hore oscillator-keenu sharaxnay waa ka bartaa kugu yaala ka samaysnaa coil-kii inductor coil-kii capacitor-kii kani waa damped oscillation-keenu sheegnay damped oscillation kan waa damped oscillation-kii ka xiisadii hore ku sharaxnayada casharkeennii kan ka horreeyay baynu ku sharaxnay iyo qaabka uu dhacayo waxaan oo dhani this is the tuning circuit-kan waxay noqonaysaa markaa
waatan waatuu ka bilaabmaya waatan waa capacitorka variable capacitorka iyo inductorkaas ka samaysanta labada inductorka marka maxaa barta kugu yeela waxa kugu yeela 10ka different transmitting stations send out different waves of different frequencies haye each induces a signal in the area of radio receiver haye markuu but if the aerial is connected to the LC circuit waa maxaa looga jeedaa LC circuit waa tani circuit only the signal this is the very important point signal ka kaliya only the signal whose frequency equals the natural frequency of the LC circuit is selected hal signal oo qura laga dooranaya boqolaalka signal oo tani circuit ka sharaxay ka dooranaysa waa signal ka frequency-giisu leekaado natural frequency-ga tani circuit frequency-ga ku dooratay waxa loo yaqaan resonant frequency frequency-ga lagu doortay weeyaan ka soo qoray dooranaysa marka kaal ay doorto marka waa maxay if the value of c is very different stations haddii qiimaha la bedelo capacitors-ka la bedelo waa halkii laga wareejin jiray muujada haddii isbedelo oo station kale la kala bedelo different stations can be turned in and this is an example of electrical resonance resonance means waxa weeyaan waa isku dubadhac waayo haddaba waa kan demodulation-kii aynu sharaxayno qaabka demodulation ku dhacaya adeero waa kan demodulation-kii sawirkiisa aynu sharaxno demodulation waa ka detection ama demodulation ku waa kan tani waa maxay waa amplitude modulation ka signalka original ka waa kaas waa original signal ki waa ka this is the original signal waa signal keeni original ka ha am ta ha waa ka dabeetana maxaa dhacay amt waxa dhacay intii hoose la waayay intii hoose maxay helay dhaayor buu maray intan baa dhaayor gashay dhaayorki markay gashay maxay jaray dhaayorki intii hoose oo dhanbu gooyay dhaayorka gam intii hoose gooday way dabeetana maxaa intaa ku xigay waxa sameeyay smoothing capacitor baa smoother daa capacitorka simaha marka intii sare dhaayorka ay dhaaftay capacitor baa ku xigay capacitorka muxuu ku sameeyay capacitorka wuu sii simay capacitorki wuxuu sameeyay capacitorki shape ee waa kan circuit-ka dhaayorka waa ka dhaayorki marka uu dhaafo dhaayorka marka circuit-kan dhaafto dhaayorka saas circuit-ka noocaas markay dhaayorka dhaafto dhaayorka circuit-ka dhaaftay waxay jaraysaa inta hoose oo dhan ma dhaafay inta hoose oo dhan baa go'aysa inta hoose inta sare oo qulu sii diinaya inta sare marka uu sii daayo kaliya intii sare wuxuu maraya capacitor-ka waxa sameynaysa smoothing way simaysaa intii AF tahayd bay simaysaa wixii kale airta bay sameynaysaa markay sinto waxa loo dirayaa data loud speaker-ka amplifier-ki wuu xoojinayaa loud speaker-ka loo dirayaa loud speaker-kina wuxuu bedelay markaa maxay loud speaker-kina wuxuu nooga bedelay markaa maxay sound buu bedelay sound qaabkaas uu shaqeynayaa waxa loo yaqaan demodulation-ku qaabka noocaas ah ayuu shaqeynayaa waa demodulation-ka shape-ka noocaas ah ama qaabka noocaas uu shaqeeyaa halkaas ayuu kaga jiraa demodulation-ku electrical radio-ga circuit-kiisu waa inta halkaas wada aragtaa this is the demodulation waa taa halka waxa kaga jira la tani circuit-ki iyo demodulation-ki waa kuwa tani circuit-ki iyo demodulation-ki waa ka tani circuit-ki demodulation-ki tani circuit-ki waa tan weeyaan waa intan this the tani circuit-ki demodulation-ki waa ka oo kan waa capacitor waxa weeyaan waa dhaayorkii uu dhaafayay ee inta sare sii diinisay tana waa capacitor-kii inoo simeysay ee smoothing-ka inoo sameeynaysa inuu noqonaysa taasina halkaas uu kaga xidhiyay marka waxa weeyaan waan isla fahanay qaybtaana casharkeena insha Allah halkaas inoogu ekaan doona. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.